shirkadda Go Turkian Study ayaa in ka badan 1500 oo arday ugu qabatay Muqdisho bandhigga fursad waxbarasho 2021 bandhiggan oo sanadlaha isla markaana loogu talagalay in lagu dhiso maskaxda ardayda ka qalin bedelatay dugsiga sare laguna jihaynayo habka ay u kala dooran lahaayeen kulliyadaha ay jecel yihiin ee jaamacadaha Turkiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka tirsan dawladda siyaasiyiin aqoon-yahano bahda waxbarashada arday iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn ujeedka bandhiggan sharaxaad ka bixiyay maamulka ku-xigeenka shirkadda Go Turkian Study mudane Cabdinaasir Aweys Abahaaji maanta waxaan qabanay bandhig fursad oo ardayda Soomaaliyeed lagu jiheynayo waxbarashada ardayda ka soo qalin jebisay dugsiyada sare oo lagu jiheynayo waxbarashada heer jaamacadood waana sanadkii labaad oo aan qabanayna bandhigan waxa ugu talgalnaa ardayda Soomaaliyeed inaan ku jiheyno waxbarashada heer jaamacadeed sidoo kale waxaan qaban doonaa isla sanadkan gudihiisa mar labaad imtixaanka yoos ardayda hore aan ka faa'iideysan waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideystaan hadda isdiiwaangelintana waa ay socotaa waxaan u qaban doonaa bishan dhamaadkeed insha Allah goor horena waxaan qabanay bishii Juun aakhirkeeda haddana waxaan qabanaynaa isla bishan sanadkan gudihiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa ardayda Soomaaliyeed inay ka soo faa'iideystaan sidoo kale waxaa bandhigga intii uu socday ka hadlay xildhibaan Dalxa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti Sheekh Cabdilxayi iyo marti sharaf kale Soomaaliya dhibka ay maanta go'aanayso waxa ugu weyn waa jahli wadankan waxaan u burburinay dhibaatada noo horseeday waa jahli waxaan isugu imaan la'anahay ee wadankeena barwaaqadiisa aan uga faa'iideysan la'anahay annagoo ilaahayna siiyay badda ugu dheer Afrika annagoo hawada ugu macaan annagoo haysanno webiyo durduraya annagoo dhul beereed 82 wax beerasho ku wanaagsan haysanno annaga oo sidaas oo kale ilaahay nagu manaystay macaadin shidaal wax kasta oo dal horumaray maanta wixii uu ku horumaray in wax ka badan haysanna mooyaane aanan ka yarayn waxa faqri naga dhigay sida tan na gaarsiiyay waa jahli xaafid iimaan baa wuxuu yidhi suurtagal ahayn dawlado shalay na dayacay daleeda noogaga tegay dadkeennoo dhibaataysan gadaal noo soo eegi waayey Turkiga ay noo soo gurmatay madaxweynaheeda caruurtiisa familkiisa asigoo ra'iisul wasaaraha uu yimid dalkan hiil iyo hooba dadkeenna u fidiyey ardaydeena hal mar 2000 waxbarasho bilowgii u horeysay uu siiyey in maanta dalal aanan waxba na tarin inay hortayna ku xagxagtaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kambaniga Go Turkey oo wax badan ku soo kordhisay dhalinyarada Soomaaliyeed ama hamigoodii wax ka bedeshay ayagana waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo anoo ku hadlaayo codka maamulka gobolka Banaadir dhamaantiin waxaan idin leeyahay qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka wax ku soo kordhinayo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay maanta inaan meeshaan aan iskugu imaano annagoo ka hadlayno wax horumar ah dhalinyarada ku soo kordhinaysa waad ogtihiin dhalinyaro 75% ayaa tihiin haddana qaarkiina badan maanta waxaan dareensanahay inaad u soo jeesateen inaad waxbarasho dalka dibadiisa aadaan ama gudihiisa waa ku barataan walaal dhalinyarada wiilashii gabdhaha kala ma yareystaan intaan oo arday Soomaaliyeed ah oo u diyaarsan inay waxbarasho ka sheekaystaan hami waxbarashana uu ku jiro haddayna hami waxbarasho ku jirin ma aydan danayn lahayn barnaamijkan laakiin hami waxa ay ku jira inaad wax barataan hamigaas ilaahay idin xaqiijiyo qof walba hamigiisa iyo nidiisa waxa ku jira Allah u sahlo intaas kadib cilmi iyo wixii ku saabsan iyo fadliga iyo waxbarashada doctor Sadiq Horeysay idil ayaa tiriba marka gabdhaha aniga culimada markii la tirinayo waxaan idhaahdaa ogaada gabdhuhuna culimada ku jiraan wiilashuna culimada ku jiraan diinta in la wada faafiyo la wada bartana waa arrin la iska wada rabo diintu cid ay gaar ugu xiran tahay ma jirto intaan oo dhalinyaro oo waxbaratay dugsiyada ka soo baxay inaynan hal abuur lahayn inaynan fikir lahayn inaynan aragti lahayn wadankeena saddexdii ugu soo bixin kuma eedeynaayo dhibaatooyinka wadankeena ka jira waxaan ku eedeynayaa wax akhris la'aanta waxaan nahay dad ay hogaamiyaan dad aan waxba akhrin hogaamiyayaasha adduunka markaad akhridid jadwalkooda maalinlaha ah saacad ama 2 saac oo kamid ah waxa ugu jira wax akhriska
halka annaga madaxdeena iyo mas'uuliyiinteenu ay ka shaqeynayaan 24 saac siyaasad oo aysan salba u haynin in adduunka la socdaan. Bandhigga ayaa intii uu socday waxaa lagu dhiibay fiisooyin waxbarasho iyo hadiyado kale oo qaali ah iyadoo sanadkan ay shirkadda Go Turkian Study ay ku abaal marisay fiiso waxbarasho oo Turkiga ah ardayga kaalinta labaad ka galay imtixaanka qaran halka ardayda qaar ay baqti nasiib ahaan ay hadiyado ugu guuleysteen iyagoo shirkadda ku amaanay doorka horumarineed ay ardayda ku dhiirigelinayso. ku faraxsanahay deeqda waxbarashada helay Go Turkiya. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho.